xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa dhambaal hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Guterres ayaa madaxweynaha ugu hambaliyay dib u doorashadiisa isagoo sheegay inay si dhow la shaqeynayaan dowladda madaxweyne Xasan Sheekh. xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay sidoo kalena qaramada midoobay ay diyaar la tahay sidii loo kordhin lahaa taageerada Soomaaliya isagoo u rajeynaya maamulka cusub ee isbedel inuu la yimaado. Antonio Guterres ayaa madaxweynaha ugu baaqay in si degdeg ah loo dhiso xukuumad cusub si dalka looga samato bixiyo xaaladda adag ee uu ku jiro. Qoraalka ka soo baxay xafiiska afhayeenka guud ee qaramada midoobay ayaa lagu yiri xogayaha guud waxa uu ku celinayaa taageerada joogtada ah ee ay qaramada midoobay siiso dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. waxaan u rajaynaynaa baa lagu yiri inaan sii wadi doono wada shaqaynta dhow oo uu la yeesho maamulka cusub si loo horumariyo qorshaha dawlad dhiska Soomaaliya iyo wax ka qabashada xaaladda bini'aadantinimo ee baan ee dalka ka jirta. ila doorta Xasan Sheekh Maxamuud aad baan ugu faraxsanahay maxaa yeelay dowladnimadu waa qoris dhiib waaye maadaama shalay Xasan oo madaxweyne 4 sano ah hadda mar labaad in loo doorto waxa laga faa'iiday waxay tahay 10 badan wax badan oo soo qalday iyo wax badan oo farmaajo ka arkay wax baa isu biirsanayo waxa laga yaabaa marka Xasan Sheekh Maxamuud hadeer intii nin cusub oo madaxweyne awliis laga dhigi lahaa aad baan u soo dhaweynaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la doorto sababtoo ah hadda ka hor waxa laga hayaa ku dhig ah qabyo ninkeeda dhameystiro waa ka suuqayna qabyadii mar ka tagay dhameystirkeeda hadda nooga fadhinaa waa nin mutacallim ah waa nin aqoon-yahan waa nin dulqaad badan waa siyaasadda fufuun tahay waxaan rajaynaynaa in wax badan ka bedeli doono shar lama saadaasho wanaag saarsa ma diiray u qadar inuu madaxweyne noqdo waxaan u rajaynaynaa in ummadan uu samato bixiyo xaaladda hadda ay ku jirtana waxa weeyaan Ilaahay baa ka bixin kara laakiin isku dayo maadaama Suudiya u qaaday. madaxda caalamka ayaa inta badan dhambaalaha hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo 15kii bishii May ee sanadkan loo doortay. Idris Maxamed Caynaan Goobjoog magaalada Muqdisho. Bimaalow Center moolka Bimaalow bari dhaweyd anoo baawur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay Bimaalow Center xog balaaran ma naga siin kartaa haa moolka Bimaalow oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay ma xarunta ganacsiga ee Bimaalow baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo bilaash maaha hadalkaygu Bimaalow Center waa mool baaxad weyn oo boqolaal shay oo kala nooc ah barta aad ka helayso qiimuhuna boqono goys maaha tayadu waa mid la hubo boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen wax kasto baahidaadu tahay badeecati u dambeysay beledkeena looga adeegto ha ahaato electronic baakadaysan wax kasto suuq looga baahdo bakeeriba ha u yaraato waa barta aad ka helayso Bimaalow Center moolka Bimaalow waxa uu ka kooban yahay dukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabiyay waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh maacuun noocyadeeda kala duwan qalabka electroniga sida qasaaladaha frinjeerka kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan make up tayadiisu sareyso iyo udug nooc kasta leh dharka dumarka waa labiskii u dambeeyay oo quruxdaada soo saaraya qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa Bimaalow Mall adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada kulayl iyo rafaad waqti badanna uusan ka lumin qiimuhuna waa mid aan ku eriyay Bimaalow Center xarunta ganacsiga ee Bimaalow barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa Bakaaraha iyo agaarka masjidka barakaysan ee macallin Bimaalow